بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنا ونكسد داودياشيدا qiimaha iyo qadarinta naga mudan oo ku soo dhawaada warkii bulsha TV oo idin ka imanaya studio-sa guud ee magaalada Hargeysa qodobada ugu doorqornay warkan caawa ku daawan doontaana waxa kamid ah madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici iyo gudoomiyaha xisbiga talada haya kulmiye Muuse Biixi Cabdi ayaa isu diiwaan galiyay tartanka musharaxnimada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka xisbiga kulmiye iyagoona maanta booqday xarunta dhexe ee xisbigaasi la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha dibadda Soomaaliland Cabdo Axmed Aayir waxa uu si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu iska casilay xilkaasi oo madaxweynaha Soomaaliland u magacaabay waxaana si diiran loogu soo dhaweeyay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ciyaar kubadda cagta ah oo lagu xusaya Allah u naxariistay marxuum Maxamed Cabdiraxmaan Muuse oo kamid ahaa ciyaartooygii magaalada Hargeysa gaar ahaan degmada Axmed Dhagax ayaa lagu qabtay isla magaalada Hargeysa roobab xoogan ayaa ka daayay waqtiyadii ugu dambeeyay magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil waqti laga cabsi qabo in baddaasi ay kacdo sidoo kalena roobabkani waxay maanta ka deen magaalada Hargeysa iyadoo ay dadkuna si wanaagsan ugu diirsadeen in ka badan 18 qof ayaa ku dhintay kadib markii uu dhisme ay ku jireen uu ku soo dugmay wadankaasi Pakistan intaasi waa qaar kamid ah qodobada aad warka caawa ku maqli doontaan bulsha TV imika iyo haatanna warkii oo faahfaahsan markale kula wanaagsan daawadayaal warkii oo fidsan madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici iyo waliba gudoomiyaha xisbiga talada haya kulmiye Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta tagay xarunta xisbiga talada haya kulmiye waxaana isu diiwaan galiyeen musharaxnimada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka oo ay uga tartami doonaan shirka golaha dhexe ee la filayo in dhawaan uu ka qabsamo magaalada Hargeysa warkaasi faahfaahintiisana aanu galno madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici ayaa maanta tagay xarunta dhexe xisbiga talada haya ee kulmiye isagoo oofinaya ogeysiiska musharaxiinta lagu siiyay in ay shuruudaha ay buuxiyaan waxa uu sheegay in lala socodsiinayay inay soo qortaan codsigooda musharaxnimada iyo inay bixiyaan lacagaha laga qaadayo musharaxiinta u tartamaya shaqooyinka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka xisbiga talada haya ee ku loolami doona shirka golaha dhexe ee la filayo inuu dhawaan qabsoomo waxa uu sidoo kalena sheegay inuu kormeerayo howlaha qabanqaabada shirka golaha dhexe madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici oo weydiiyay inay haboonayd inuu hankiisu dhaafo musharaxnimada madaxweyne ku-xigeenka maadaama uu muddo 7 sano uu madaxweyne ku-xigeenku yahay madaxweyne Axmed Silaayo waxa uu ku gaabsaday in uu dhameysanayo waqtiga dastuurku u ogol yahay in uu mar labaad isa soo sharaxo waxaan ka maanta aan midday laba arrimood oo midda koowaad waxaan waxay naga rabeen runtii waa noo sheegeen inaan isdiiwaan gelino inaan maartay arjiga soo qorno musharaxnimada inaan depositkii nooga baahnaa aan shubno soo sheegay gudoomiyaha sabtay hawsha naga dhamaanaysaa midda labaadna waxaan kamid ahay sabab socota hogaankii waxaan kamid ahay hogaanka xisbiga shaqada qudheedana waxaan inayo kormeero hawsha ka noo maray sidii diyaar garow inaan maartay wax kala socdo si fiican hawsha waa socotaa ilaa haddana waxa la oran karo waxba khaldan ama waxba dib u dhacsan ama wax maartay midna ku jirta hawsha bini'aadan oo dib walba si mufta waa si wanaagsan in baan ahaa 10 sanadood dastuurkeena waxa uu dhigayaa in nin kastoo muwaadina ama nin kastoo madaxweyne noqda ama madaxweyne noqda inuu xaq dastuuri u leeyahay markiisa labaad marka waxaan u tartamay waa markii xaq walaad dastuurka lahaa markii labaad ahaa waxaan siyaasiga dib walba isaga fikirkiisa iyo aragtidiisa iyo sida wax ugu suura galayaan isaga yaqaana waxaan ila muuqataa markaa inaan dalka qaranka ugu shaqeeyo halkaan uu joogay ku dhameystiro muddadii hadhan 5 sano soo socda waxaan rajaynayaa inaan ku guuleysan doono qaranka uu shaqeynaa ku wada doono wixii inta ka dambeeyana dastuurka waa maartay dhigayaan ummadda u baneeyay xisbi dimuqraadiyan ah taas waxa hadal ma xisbiga dimuqraadiga ka soo baxa iyadoo ku qasbanta sidoo kalena hogaamiyaha xisbiga talada haya kulmiye Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inay wada hadal la yeeshaan musharaxiinta isbahaysiga ee ka soo horjeeda garabkiisa waxaana uu diiday in shirka golaha dhexe ee salaasada soo socota qabsoomaya dib loo dhigo gudoomiyaha xisbiga talada haya kulmiye Muuse Biixi Cabdi oo maanta booqday xarunta dhexe xisbiga kulmiye oo looga yeeray waxa uu sheegay inay tahay in musharaxiinta kala Maxamed Biixi Yoonis Cabdicasiis Maxamed Samaale iyo Xildhibaan Axmed Cabdi Gijaande ugu yimaadaan xarunta xisbiga isla markaasina ay la tartamaan waxaan ku nidba yaridii ay noo yeeleen xogayaha guud murashaxiinta inay xarunta yimaadaan oo hawli laga doonayay ay ka qaataan wixii la farayay intii waan u nimid waxayna farayeen waana soo fareen waana fulinaynaa
jirta magaca Cabdiraxmaan Fantaas waxaan ka socdaa Bulsha TV waxa jiray war maalmaha bisheegay shirkii dib u dhacay arrintaas waxa kala shirku waqtigiisa u dhacay hadii la yiraahdo qoladii gacanta ku haysay kuwa tan oo yeeray hadda waxaan laga qoray araajida laga qaaday shuruudii kalena looga baahnaaye isagoo fulina maanta sabti haddaan ka dambeeyno waxa waqtiga ka dhacaya marka sabtaan soo xareeynaa intii shirkooda waxay noo sheegtay in aanan daqiiqad ka dhacayn sabti gali karo marka shirkii waqtigiisa ku socda cid ku warata garan maayo aan ku baaqayaa inaan soo waado oo nooga xafiiskii xarunta soo waado oo wixii dhaliil ahaa dhan farta aan soo saaro oo gudoomiyaha wali wixii gardarra asriyeed inay tusoo aan qaato ilaa wala kala gar qaataa oo odayaashii waaweynaa oo rag aan u baahanahay inay xisbi xarunta ka maqnaadaan ma aha sababtoo aan horan ku hadalnaa garabka musharaxiinta isbahaysiga ayaa ilaa iyo hadda wax war ah aan ka soo saarin dhawaaqii xogayaha guud ee xisbiga talada haya ee kulmiye xasan Saciid Yuusuf ahaa in cidii sharaxan jagooyinka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ee kulmiye ay timaado xarunta xisbigaasi maalmaha Khamiista, Jimcaha iyo Sabtida si araajidooda iyo lacagaha musharaxnimadaba looga qabto. Roobab xoogan ayaa ka da'ayay magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil iyo guud ahaanba dalka waqti laga cabsi qabo in baddu ay kacdo. waryahayaga maxamed cali dhuux ayaa faahfaahinta warkani magaalada Berbera nooga soo diray. waxa guud ahaanba maanta magaalada Hargeysa caasimada Soomaaliland ka daay roobab laxad leh oo dad iyo dunyaba lagu diirsaday waxaana roobabkaasi si fiican u biyo dhigeen qaybaha kala duwan ee magaalada Hargeysa. roobabkan ayaa bilaabmay salaadii duhur markii laga soo baxay waxaanu si talteel u daayay muddo ku dhawaad saacado ah sidaas oo ay tahay dadweynaha ku dhaqan caasimada Soomaaliland ee Hargeysa ayaa si mug iyo miisaan leh u soo dhaweeyay roobabkaasi iyo raxmad keebe iyadoo ay meelo kala duwan ay magaalada Berbera ka mid tahay ka deen roobab iyo raxmad keebe. ciyaar dhinaca kubadda cagta ah oo lagu xusayay allaha u naxariistee marxuum maxamed cabdiraxmaan muuse oo ka mid ahaa ciyaartooygii Soomaaliland gaar ahaan degmada Axmed Dhagax ayaa shalay lagu qabtay magaalada Hargeysa. waryahayaga Fahad Axmed Kaariye ayaa warkani noo diyaariyay. kulan ciyaareedkani oo lagu xusayay allaha u naxariistee marxuum maxamed cabdiraxmaan muuse oo ka mid ahaa ciyaaryahanada degmada Axmed Dhagax ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa. xus ciyaareedkan lagu xusayay marxuumka ayaa waxa ciyaar xiisa badan isaga hor yimid qaar ka mid ah ciyaaryahanadii ay saaxiibka ahaayeen iyo qaar ka mid ah kuwii ay isku kooxda ahaayeen oo kala matalayay kooxaha waaye arag iyo cashuur. mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa ka qayb galay kulan ciyaareedkan lagu xusayay marxuumka waxaana halkaasi laga waramay kaalintii uu kaga jiray dhalinyarada degmada Axmed Dhagax. ugu horreyn garyaqaanayaal maxamed ciige iyo maxamuud cabdi xasan Koofindo ayaa ka warbixiyay kulan ciyaareedkan lagu xusayay marxuum maxamed cabdiraxmaan muuse waxaana hadaladoodii ka mid ahaa marxuumka maxamed cabdiraxmaan muuse waxaan leenahay marka hore ilaahay naxariista jannada ka waraabiyo. waa xus aad u murugo badan runtii in dadkii xirfadyahanadii ee kubadda cagta hormuudka u ahaa inay badda Liibiya iyo saxaraha Liibiya ay naga dhintaan waa nasiib darro inteeda leeg. ugu horreyn qofka bini'aadamka wax lagu xuso waxa ugu muhiimsan in faataxada loo maro inta halkan shaashada naga daawan doonto intiina joogtaba waxa kaliya qofka gaaraya waxa weeyaan in Ilaahay loo weydiiyo dambi dhaaf inuu Ilaahay dambi dhaafo waxa leen Ilaahay dambi dhaafo marka hore. marka labaad aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta imaado xaafadii geesinimada iyo dhiiranaanta xaafadii Axmed Dhagax inaan imaado maanta aad baan ugu faraxsanahay. runtii inankaasi maxamed cabdi muuse wuxuu naga dhintay haddii uu baahidii shakhsiga ahayd iyo xirfadiisa wixii uu ku soo bandhigi lahaa uu dalkan ka heli lahaa muu tahriibeen saxarahana isaga iyo namada kale tirada badan inagama dhinteen. waa nasiib darro maanta waxa la yiraahdaa caana daatay dabadood la qabay. halkan waxa joogta dhalinyaro waxa jooga hormuudkii iyo aqoonyahankii iyo ciyaartooygii baa jooga Soomaaliland gaar ahaan xaafadda Axmed Dhagax. xaafadda Axmed Dhagax waxa ku yaqaanaa xaafadaha dheer xidigo waaweyn oo Soomaaliland ka dhex muuqda. waxaan halkan tacsiyo uga dirayaa mar labaad iyo mar saddexaad ba ehelkii iyo qaraabadii ka baxay marxuum maxamed cabdi muuse oo ka mid ah bahda sportska gaar ahaan degmada Axmed Dhagax. ninkaas oo ahaa nin dhalinyaro ah oo runtii badweynta maray nasiib wanaag Liibiya ku geeriyooday dhowr jeer horena xuskana ka qayb galeen loo sameeyay. waxaan kaloo mahadnaqayaa dadka kale ee hawshan la qayb qaatay dhalinyarada ka caawiyeen suurta gasho ee xisbiga wadani ugu horeeyo. waxaan fariinta la dirayaa tahay in kuwa tahriibka ku hamiyana ay ku tusaale qaataan ay iskaga joogaan. waxa kaloo fariinta gaarsiinaya cid kasta dhalinyarada ku xiriir leh ama wasaaradda ciyaaraha noqoto ama xukuumadda ha noqoto ama xisbiyada laftooda in iyaguna ku darsadaan barnaamij ah in dhalinyarada loo sameeyo dhiirigelin si ay tahriibka uga nabad galaan.
marka waxaan markaa kan tacsiyo uga diraya ehelkii qaraabadii ka baxay marxuumka walaal ismir iyo iimaan inta kalena waxaan leeyahay wadankiina aamina mustaqbalka insha Allah wayna hagaagsan alxamdulillah rabbil alamin munaasabadan maanta oo ah munaasabad xusitaana sidii aad wada ogeedeen ama maxay caadadeen oo aan jirtay sanad walba bisha 12aad maalintiisa afraad waxaanu qaban jirnay xuskii lagu xusayay maxay marxuumkii naga dhintay ee ka dhintay kooxdii kubadda cagta ee Cashuur Maxamed Cabdi Muuse oo maxay naga geeriyooday inaynu laacibkeennii dib u xasuusanno oo aynu u ducayno labada loo mid wax weeyaan inaynu u ducayno isla markaana aynu xasuusanno ujeedada xafladda loo qabtay waa taas maanta waxaanu maxay u mahadcelin u jeedinaa dhammaan dadkii ka soo qayb galay maxay gacanta naga siin xuskani maanta dhaco oo ay maxay ka mid yihiin mas'uuliyiinta maanta naga joogta xisbiga wadani oo maxay ka qayb qaatay sidii xafladdan maanta loo hirgelin lahaa dhammaan cid kasto maxay gacan ka geysatay baan u mahadcelinaynaa sidoo kalena labada kooxoodba maanta ayaa wada ciyaar doona ciyaartii maanta dhex mari doonta insha Allahuna waxay noqon doontaa ciyaar duca iyo xusuus gabagabada ciyaartani koobka lagu xusayay marxuumka ee dhex martay labada kooxood ee kala matalayay kooxaha waay arag iyo Cashuur waxay sidaas guusha koobkani ku raacday kooxdii matalaysay naadiga waay arag iyagoona 2-0 kaga badiyay kooxdii matalaysay naadiga Cashuur Faad Axmed Kaariye Bulsha TV Hargeysa وهاجتا وضيال intaas waxaan ku soo gabagabayn doonaa war waxaanu dalka gudihiisa iyo dibadiisa baan idin ka haynay oo aad ka daawanayseen Bulsha TV studios gudaha magaalada Hargeysa warka xigeenta ku kulmi doona aniga iyo dhammaan bakhyaartiga la qayb qaadatay tabinta diyaarinta isku dubaridka iyo habaynta warku waxaan kaga taginaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh